warqadan ay hortaal hadda waxa qoray isbitaalka Bandar Qaasim ee magaalada Boosaaso bay ka soo baxday baaritaan markii ay ku sameeyeen dhakhaatiirtu waxay cadeeyeen Lahore inuu u dhintay xanuunada kala ah wadnaha oo hawlgab noqday beerka oo hawlgab noqday kaliyaha oo hawlgab noqday sanbabada iyo wadnaha iyo dhiikar intaas u dhintay Lahore jidadiisa ma jiro hadii ay rabto dawladdu inay disho toogashuba ku xakunaa cidii ugu haybaysana ma jiro tiirka la gelin waan la toogan lahaa waxaan rabnaa inaan cadeeyno dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ah ninka argagixisada ah inuu xanuunadaas u dhintay dawladda Puntlandna uu toogasho kaga xakunaa laakiin aan dawladdu dilin dad kale Lahore waa la dilay oo cadaalad ma uusan helin waxaan rabaa inay ka jawaabaan dadkii ku dhawaa boqolka qof oo Lahore amarkiisa lagu dilay inay cadaalad helaan dadkaas u baahan inay cadaalad helaan Lahore mujrim buu ahaa dadkii reer Puntland dhameeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi